halkan waxaa taagan saraakiil badan oo ka howlgashay dhuxusha iyo xaabada oo ku howlgashay wareegtadii ay soo fuliyeen madaxweynaha iyo dawladda Puntland oo dhan dhamaanteed oo aan hadda halka ku hayno sidii ay u soo fuliyeen ayaanu anagu u fulinayna dadka waxa ka ganacsadana waxaan u sheegaynaa halka ay taalo in lagu gubayo oo qof kasta uu ku qanco wareegtadaas inay ka soo baxday dawladda Puntland ka soo baxday baanu nin kasta u sheegaynaa qofkii dib ugu soo xadgudbo oo dib u soo qaadana in la marin doono waajibaadka uu leeyahay oo ganaax iyo xarigba wixii uu mutaysto la marinayo ayaan u sheegaynaa dadka soo guraya xaabada iyo dhuxusha inta ka dib halkan waxa ka howlgalay ciidamadu aad bay uga howlgaleen waad aragtaan in waxa halka yaala xaabo iyo dhuxul inta taala waad aragtaan in waxaan u sheegaynaa Puntland oo dhan meel kasta ay joogto in sida looga howlgalayo inaana sii deynayna in kasta oo halka haduu soo gaaro aanu dab saari doono oo ka gubi doono ninkii dib ugu noqdana waxa laga qaadi doona talaabo sharci ah waxa sababay xaalufinta dhulka hadda waxa weeyaan halka xaabada dhuxusha taala waxa laga gooyo waa dhirtii qoyanayd oo nooluhu ay ku noolaayeen way waxa halka xaabada taalana waa geedkii qoyanaa oo isaguna la mid ka ahaa dhuxusha ka sii sareeyay oo qoyan oo la soo jaray oo hadda dhirtaas ay tahay dhirwada qoyan gabigeedu ma xaaba laga soo dhigay qaybna dhuxul laga soo dhigay sababtan uu kaliftay ama dawladda Puntland ay wareegtada uga soo saartay waa sida weeye xaalufinta dhulka weeye in dhulkii la nabaad guuriyo oo la jinguuriyo ayaa dadka qaybtiis rabaanin dawladda iyo wixii la shaqeynayay ciidamaduna waxa weeyaan waa la dabar goynaya ninkii dib ugu noqdana waxa laga qaadaya talaabo sharci laga qaadaya waxa laga qaadaya dawladda laga sugayo waajibaadkeeda laakiin anagu waajibkeena la faray anagu waanu marinayna waajibka labaadna dawladda laga rabaa oo ninka si telefishinkaas ka daawanaya ninkii dib u soo qaada ama dib ugu kaca waxaan u gudbinaynaa anagu saldhigyada u gudbinaynaa jaalasha isaga iyo gaadiidkiisa ma gaadiidku waras buu noqon doonaa hadii aan joojin xalagu bedelaya adduunka waxa la gaaray casri baa la gaaray waxa la gaaray bibi gas baa la gaaray oo bibi gaskii uu yaala magaalooyinka waxa yaala solartii raashinka lagu karsanayay wax kasta way yaalin magaalooyinka qofku waa inuu isticmaalaa wixii dhirtani ku badbaadaysay wuu garanayaa asaguna waana helayaa oo bedelkeedii waa haystaa annagu arrintan saakaanu maqalnay lama socon arrimaha kanu in ayaama kal cusub yihiin balse أول بباشتون واحد أهل ممنوع لكن ممنوع عسى تهي كل يوم سعون جدي سكس كهو سعته ساك هدانو مغلنا وسؤالني روى تنقطع المعيش الله يراه جنبع سيدا هدى المسركال كوينو كو الرمائيي وحان الله تصي وراغا الشرعية وكسو بحي دولدة أنه مركا انت هدانو مغلداتك غيلنا ينوحان نري mar haddii waraaqahaas jiraanin waa wax sharci ah anagu sharcigana kama hor iman karno waxaan si halka ku darayaa baashi gar walba way ka soo gashaa wadanka boosaaso saaka waan ka imi way dhex mareysay oo badnaydo baabuur saarnayd macag bay xoogeedu ka yimaadaa baa la leeyahay waxa fiican in wax laga wada qabto ma aha irid kaliya in wax laga qabto sharciga kan mar hadduu dhaqan galay in bahasha dhinac walba laga qabto bay ku fiican tahay laakiin haddii dhinac kaliya laga qabto dhinacyada kaleetana la sii daayo hadda maminto halkaas waxa laga helayaa lacag hor laaba laga helayaa laga qaadanayaa hawl hor laaba ka socota marka waxaan leenahay anagu wax joojin la yiraaho iyo wax la yiraaho maxaan isortaag mar haddaan ciidamadii nahay sharciga kana aan aragnay anagu ma hor joogsan karno كمان هاللي كانوا ما ندافع كرنا